dadku inay murmeen waan ogaa iguna daaleene darbaa yidhiba duuyuu ka xaday dawladda xamare darro ugu baqday igu xanteen doorkan maxamuude darro way imaha garanayeen dan iyo xeeshaye ducaan jirase haddii aan war ka idin dareensiiyo dib u dhigasho mooye murtidu way igu dihineeyeen waxa la yidhi nimanka dhakhaatiirta indhaha eega waxay yidhaahdeen arag waa laba haddii aragga gaabani kaa lumo ka dheer joogo waad indha qabtaa haddii aragga dheeri kaa lumo waad indha beeshay araggii dheeraabay naga lumaye aragga dheer Allah inoo soo celiyo annaga kaliil baan la yiraahdo dib dambaysan looguma hadlayo mucaarad bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala ilaahay baan mahadnaqaynaa marka labaad waxaan u mahadnaqayaa odayaasha xuqaasha reerka isxaaq carre salaadiintooda xuqaashooda ninkarbeedka kale ee fadhiya culimada dhalinyarada iyo aqoon-yahanka ka soo qayb galay shirkan maanta aynu ku qabanay magaalada Hargeysa oo lagaga hadli doono duruufaha iyo arrimaha maanta dalka ka jira iyo roolka uu ka qaadanayo reerku oo halkan maanta lagu soo gudbi doono shirkaas oo laba cishoba faaqidaadiisa iyo arrinkiisa ka baaraandegiisa lagu jiray oo maanta ku qabsoomay magaalada Hargeysa waa 19 bishii Oktoobar 2022 waa magaalada Hargeysa waa hotelka Al Shukri waa shir ay isku yimaadeen xuqaashii reerka oo isku dhameystiran oo wax badan ka maqanayn nin shaqo ku maqan mooyee intii kale ay joogto oo si weyn looga baaraandegay ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala waxaan doonayaa maanta oo shirkeenu ku furayaa ujeedada shirka loo qabtay inaan halkan ka cadeeyo sida Soomaaliland la socoto waxa jiray baryahan ugu dambeeyay khilaafyo siyaasi oo soo noqnoqonayo ka jiray dalka ka jiray anigu runtii suldaan ahaan baryaha kamaan hadal way ogeydeen wuxuu dheeg baa gabiyo dadku inay murmeen waan ogaa iguna daaleene darbaa yidhiba duuyuu ka xaday dawladda xamare darro ugu baqday igu xanteen doorkan maxamuude darro way imaha garanayeen dan iyo xeeshaye ducaan jirase haddii aan war ka idin dareensiiyo dib u dhigasho mooye murtidu way igu dihineeyeen waa mar gabaygi khayrallaasi waxaan xanuunsanayaa ma malaya dheeg ayaa gabayga la durdur baa la oran jiray ma hadal muddo dheer laakiin markay halkan oo kala soo gaadho meel qof wax kala garanaya ka aamusi kara maaha meel caaqil ka aamusi karaya maaha meel suldaan ka aamusi karaya maaha waxa weeye waa naftiyo waa naftaadeenna nida hajbimay maraysaa oo in laga nasteexeeyo waa maalinteedii aniga iyo ragga kale xuqaasha halkan fadhiya ee hadli doonaaba aanu ka hadlayno waxaan doonayaa inaan ku horeysiiyo waxa lagu dhawaaqay shir oo ujeedada shirka maanta loo qabtay ah oo loogaga dhawaaqay magaalada Hargeysa oo la yiri burca lagu qabanaya oo magaca aanu ka tirsanahay ragayga halka fadhiya ee garxajis la huwiyay waxa yahay ujeedada maanta shirka iyagu shirka lagu dhawaaqay ee ragii hadli jiray ee axsaabta mucaaradka afayeenada u ahaa magaca iyaga huwiyay ee ay magaalada burca ku qabanayaan ay ku sheegan ku qabanayaan shar iyo khayr wixii uga soo baxa waxaan doonaynaa inaanu halkan ka cadeyno maanta midna idin lama qabno walaalayaal nagalama idaan tashanin idin lama wadaagno idin kula ololaymayno siyaasadda halka ugu ololeynaysaan waynu ku kala bedelanahay waxay haydina magaciina iyo xisbiga nimada iyo mucaaradnimada iyo xisbiga u ololeynaysaan afkiisa ku hadashaan ina magaca inaga dhaxeeyo isticmaashaan xaq noogu meedan lahayn horena waa u isticmaasheen nabaradii ku dhufateen horena waanu sheegay wali wala dhutinaya maantana waa looga doolaa mid kale u cilinaysaan oo dhaawac kala ana huba inaydan wanaag ka keenaynin waxa ka keenaysaan wax la yiraahdo warnimada maantana maxay yiraahdeen marka taasna idin lama qabno idin lama naan qaadan naga lama idan tashanin ma wadaagno ninkii ku baaqay oo adiga kugu baxday anaga noomaad qaban inta waa cadeynanaado reer ahaan mowqifka iyaga reer ahaaneed waa ma qabno shirka cid nagu matashaana ma jirto aan u dirano waa waxaan wada leenahay
nin walba reerkiisa iyo geeliisa iyo arigiisa u raacda laakiin se waxaanu wada leenahay inuu wada tacabnay inuu wada dhisanay waa qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland taasay naga dhaxaysa taasaynu nabadgelyadeeda wada leenahay taasaynu wada ilaasho karraa taasayna deeqaysa war ninkii aan taasu ku filooyno ee foolxumadeeda iyo xumaanteeda ka shaqeeyo wallaahi inaanad waxna yeeli maysid oo aday kugu bixi adigana waxaad manaafacaadahoo wanaagsan oo dhimca aad ka helaysaa ma jirta ceebteeda adun bay ku dumarsan doontaa maalinba maalinta ka dambaysa adun bay kugu soo ururi doontaa maanta shirkan Isxaaq Weyl iskugu yimi waxa uu daaran yahay waxa weeye shirka maanta lagaga baaqay Hargeysa ee la yiri Burca lagu qabanaya haddii aan anagu reerkii Isxaaq loo jiray wax iska weydiiyay odayaashiisii salaadiintii jiif caaqladii uqaashii kale iyo dhammaan waxgaradkii kale ee beesha waxa noo soo baxday anagu inaanaan shirka cidina noo soo sheegin waa qodobka koowaad laba inaanaan ninka qayb galaynaan Isxaaq diran sida awoodeed xumaaniye oo wanaag wixii uga soo baxa anagu lama qabno Jamhuuriyadda Soomaaliland waa saddex xisbiba ka koobantay dawladnimada marka ay eegno labada xisbi mar may wada fuuleen laba waa mucaarad midna waa ka daqara hay'adda dawladnimada haddii ay ku guuleysan waayeen oo ay iyagu tabardaradooda ay halka dhigtayna inay maanta reernimo ku soo celiyaan horta lama qabno hadalkaygu anigu wuxuu ku kooban yahay waa soo gaabinaya odayaal badan baa fadhiya way hadli doonaan war anagu lama qabno cid Isxaaq oo diranina ma jirto waxaan u sheegaynaa Jamhuuriyadda Soomaaliland 3 sano jirtay 3 sanadoodna nabadgelyo iyo nimcadaasi ku jirtay saddexda xisbi markaynu reernimada aynu uga guurnay qabiilnimada waxaynu uga guurnay saddexda xisbi baynu u samaysanay in lagaga guuro waxa weeye maanta dib baa loogu celinayaa waxay doonayaan Burco nimanka shirka ku baaqay inay ku celiyaan qabyaaladii iyo Soomaaliland dhimashadeedii annagu lama qabno ciidaanu Isxaaq oo diranayna ma jirto wixii ka soo baxana annagu shaqo kuma lihin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkani wuxuu daaran yahay shirka la yiri Burca lagu qabanayaa wax iska weydiintiisa iyo ku baraarugiisa ayaa shirkan oo loo qabtay shirka weeyaani shirka xusbiyaa qabsaday xusbiyadaasi de mucaarad bay ahaayeenoo inay shir qabsadaan de waa u furan yahay laakiin reeraha waynu ka gudubnayo 30 sanadood ay Soomaaliland jirtay beela way dhaaftay iyo reero xusbiyada maanta jirana haday mucaarad iyo haday maxaafid tahaybana jaranjaradii ay kuwii hore dhigeen ayuun bay marayaan ay ku joogaan beelaha maanta inaynu kolkaa dib ugu noqono aynu reerayno aynu Soomaaliland ku burburino wax meesha inoo yaala maaha waa waxaynu ka gudubnay waxa anagu shirka wax naga arrin galiyay oo haddaan cuqaashanahay nala tashaday oo ku diidnay ma jirto waxaan u diranay oo amarnay oo niri shirka ay nooga qayb galeen ma jirto xusbiyadana kolka magac qabiil la sheegayo de qabiil walba xusbi waa ku jira cidi waa kaga jirta taa kolka shirka wixii ka soo baxa sidaas anagu cidna ugu diran una ogeyn wixii ka soo baxana aanan anagu shaqo ugu lahayn Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa siday ku soo nabad iyo caanabaashay nabad buu hayo wada tash iyo isu tanaasul iyo wax wada qabsad tiyaanay ka tagin haday ay doonayso annaga kaliil baan la yiraahdo dib dambaysan looguma hadlayo mucaarad xaafid baan meel walba waanu kale qarsanna mayno hadda ma fahanto kolba ka xukunka qabsadun baan anagu jabinay waayo khasaaray nagu tahay intaan mucaaradka ahayn u baxaya Burco ee la leeyahay waa magac garxajis aniga tay markay ugu horeysa aniga imaka ayay ugu horeysa taladu halkay ka bilaabantay ka kacday ka goda Isxaaq damiya loo leeyay talo Burco lagu qabanayo loolama iman deemaan maqal anigu waxaan ugu taaganahay barnaamijka Burco ee aanayna soo gelin inagu haddaynu doonayno raadsano waynu gardano inagu haddaynu raadsano
وينو قردرو مبدأ وامل إسحاق مبديسو وامل خير هالجيسان مبدأ وامل نكبري كهذا يو دواي الكذا dadku maanta Soomaaliland meel kastaba ha joogaani waxa ay ku badbaadayaan waxa weeyaan dani ugu jirtaa waa nabadgelyo way hadii nabadgelyada lagu cayaaro oo la waayo dhibaatadeeda ay leedahay waxaan leeyahay mid suldaana iyo mid caqaala iyo mid madax dhaqameeda iyo mid haweena iyo mid aqoon-yahana nabadaan wada ilaalin horta war ma wada ilaalinaa nabadda nabad waa muqaddis waxaan leeyahay nabadda danteena ku jirta waxaan leeyahay oday dhaqameed kasto hadlaa wuxuu ku matali karaa dadka marka uu ka hadlayo wanaag hadii uu wanaag wado oo uu doonayo inuu wanaag umada ku hogaamiyo haduu siyaasi yahay iyo haduu oday dhaqameed yahayba dadka uu anfacaya shirar baa la sheegayaa ama burcaha laga furo ama meel kale ha laga furo shirkii aan loo wada tashan intashi laga gaaray oo laga midaysnayn ee aan marka umadu intay ka baaraadatay aanay meel wax dhigan shirkaas horta meel kastaba jooga waa dhicis leeyahay anigu haddaan shacbiga Soomaaliland lahay inta halkan fadhida iyo inta afkooda ku hadlaynaba beelaha kalena aanu leenahay nagu taageero shirjaayad qabta 5 sanadood aan nasanno wax doorasho ayaan qabanin dadka horumarin ha loo sameeyo biyo gelin ha loo sameeyo anfac ha loo sameeyo dhan ha loo jeesto ha la shaqaysto laakiin yaan doorasho la isku wareerin waxaanu leenahay waanu qaadacnay doorashada mid soo socota iyo mid sii socota doona 5 sanadood waa nasanaynaa qaar baa ilaa beel caalam baa inoo oo beesha caalamku dawladnimada iyadoo ma aqoonsanay maxay nagu xisaabtamaysaa nagu xukumaysa lama xukumi karto waa dadka waxaanay dalkoodii xornimadoodii la soo noqday kolba waxaanu dan moodnana waanu yeelaynaa waxa la yiri nimanka dhaqaatiirta indhaha eega waxay yiraahdeen arag waa laba hadii aragga gaabani ka lumo ka dheer joogo waad indha qabtaa haddii aragga dheer ka lumo waad indha beeshay araggii dheeraabay naga lumay aragga dheer la haynoo soo celiyo Soomaaliland ha noolaad ninka dib u celinaya ee maanta reeray iyo qabyaalad iyo shirar beeleed wadawna waxaad haysata maad garan ee ku kordhay waxa Soomaaliyeedina dhibtay ee ina yastay haystana maad eegin waxa la shirkad xajiis baa lagu qabanayaa burco beelweyn taa isxaaq cid u timi iyo cid tirinaga aanu arinta aynu ka wada hadalno iyo wax la inoo sheegay midna ma jira markay sidaa tahay faarax nuur baa yiri raka faqay rafiiqnimadii inta laga reebay meel laga reebin dhalaalma si raaco waxaan leeyahay hadaynu isxaaqnahay inagu dawladda Soomaaliya iyo nabadgelyada taageerayna waxa weeye shirka burco lagu qabanayo lagu magacaabay magaca garxajsi aynu ka mid ka nahay garxajsu shirkalaad ceeb male wax la qoosoo laga boodo maaha laakiin sida imika loo dhigayo la siyaasad waxaan leeyahay hal kala saara siyaasadda iyo reernimada reerku iskii uu shiri kara oo qaab uu soo shiri jiro intii aynu umanayn baa jirtay laakiin siyaasadda iyo reernimada hal kala saar siyaasaddu waxay leedahay golayaal baynu sameeysanay garoon lagu ciyaaraabay leedahay platformay leedahay marka bahasha platformadeeda aynu deeyno reernimada iyo wixii dhaqan iskood cid walba kasta way shiri kartaa laakiin shir siyaasadaysan oo la beeleynayo oo ay mucaaradada ka dhex muuqato oo aan la isku ogeyn inagu laba qabno halka wixii ka soo baxa shirka lagu baaqay ee la leeyahay waa burco halkay waxa isku yimi beeldan oo beeshiisa xaqa isxaaqna waa nabatalis ma yaqaanaan baydhbeedhka kale wada xumada ma yaqaanaan gudaaca ma yaqaanaan meesha xun ma yaqaanaan wanaagu baanu doonaynaa laakiin markay qodob imakaan eegaan shaandhaynayo carabkaan ku dhadhamiyo macnihii markay leedahay shirkad xajis iyo burcoy maxay tahay xaggay ku saabsan tahay maxaa ujeeddadaas maxay dhadhamaysaa waxaynu u guuraynaa xusbiyo waxaynu u guuraynaa haddaan la ka dhigo dadka waa la kala jiidanayaa ninba bar buu wataa waxaa la doonaya in la kala kasbada laakiin maanta ninka doonayo burco iyo haddaan la ka dhigo qabiilow waa dhadhama xumo taa annaku ma ogolin